degmada Lehelyo ee gobolka Doolo waxa ka furmay tartanka kubadda cagta kooxaha degmooyinka gobolka Doolo ay ku loolamayaan tartanka 13aad ee ciyaaraha gobolka tartankan oo ah kii 13aad isla markaasina ay ku loolamayaan kooxaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Doolo ayaa waxa daafurka tartankan kubadda cagta ee degmooyinka gobolkan ka soo qayb galay maamulka gobolka Doolo iyo qaar ka mid ah maamulada degmooyinka mas'uuliyiinta maamulka gobolka Doolo iyo kuwa degmada Lehelyo oo ka hadlay daafurka tartankan ayaa kula dardaarmay kooxaha kala duwan ee ku loolamaya ciyaaraha degmooyinka gobolka Doolo inay muujiyaan dulqaad ciyaar wanaag walaaltinimo ixtiraam isqadarin isla markaasina ay muujiyaan akhlaaq wanaagsan iyo dadaal dheeri ah intay socoto ciyaartu kula dardaarmay kooxaha kala duwan ee gobolkani ciyaartan oo ah tii ugu horeysay ayaa waxaa lagu furay degmada Lehelyo oo martigelisay tartanka 13aad iyo degmada Daratoole ee gobolka Doolo waxaana ciyaartani ku soo dhamaatay hal iyo eber isla markaasina halkaas ay guusha ku raacday xulka degmada Daratoole ee gobolka Doolo hogaanka nabadgelyada gobolka Doolo iyo isku duwaha ciyaaraha gobolka Doolo iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Lehelyo ayaa warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida SRTV uga warbixiyay daafurka ciyaaraha gobolka Doolo waxaan maanta joognaa degmada Lehelyo waxaan nooga furmay koobka degmooyinka gobolka Doolo oo halkan ka socon doona haddii alla yiraahdo muddo uu maarta koobkaasi daahsamayo waxaa maanta martigelisay koobka degmooyinka gobolka Doolo degmada Lehelyo waxaana la ciyaaraysa degmada Daratoole marka waxaan rajaynayaa haddii alla yiraahdo inay guul noogu dhamaato maadaama guul noogu bilaabatay oo nabadgelyo Ilaahay noogu keenay nabadgelyo noogu bilaabatay in Ilaahay nabadgelyo noogu dhameeyo waxa kale oo dhalinyarada kula dardaarmaya haddii alla yiraahdo inay akhlaaq iyo wanaag isku dhaxgalaan koobka waxa inta badan booliska siyaasadda loo dhigo xawayaan in dadku isbartaan qofka bartan ka tagay uu barto qof kale oo maartay meesha uu tagaya marka qofka bartan ka tagay inuu galaadi maartay uu joogo halkaas galo marka waxaan rajaynayaa haddii alla yiraahdo inuu koobkan si nabadgelyo noogu dhamaado si nabadgelyo noogu furmay saasaan rajaynayaa haddii alla yiraahdo waxaa maanta xarunta Lehelyo nooga furmay koobka degmooyinka gobolka Doolo waxaa lagu furay degmada Lehelyo iyo Daratoole waxaan rajaynayaa in koobka si qurux badan noogu bilowdo insha Allah si qurux badan noogu dhamaado wallaahi waxaan baa u dir lahaa kubaddu waa saddexgal waxaan ugu qabanay tartanka in la isku barto la isku dhaxgalo la isku soo dhawaado tartanka in la isku dagaalo maana qaban waxaan rajaynayaa in si qurux badan tartankan ay ugu bilowdaan si qurux badan noogu dhamaado insha Allah kullay mid uma qaad dowladda degmo Ilaahay calaf ugu daro balse ay ugu dadaalayaan meesha Ilaahay kolba u qoro gaariyaan marka insha Allah waxaan rajaynayaa ilaa dhamaadka tii u soo guubtan inaan taageerno toogu horeysan inaan taageero doono insha Allah fariinta u dambaysa waxa weeye in tartan qurux badan oo cadaalad ah insha Allah meeshaas ka dhacdo degmada Ilaahay u qoro ee calaf u daro inay qaado anaguna si qurux badan koobkeena u bilowno inaan u dhameeyno insha Allah runtii waxay farxad weyn noo ah inaan marti gelino koobka ciyaaraha todobada degmo ee gobolka Doolo oo maanta ka furmay studio ama garoonka ciyaaraha ee degmada Lehelyo taas oo lagu bilaabay furitaanka maanta ay hor tageen degmada Lehelyo iyo degmada Daratoole ciyaar qurux badan oo saaxiibtinimo ay dhex marayso sidoo kale ciyaaraha waa barnaamij dhalinyarada oo ah isdhexgal ay dhalinyaradu isku dhexgalayaan inay maanta Daratoole Danood Wardheer Galxamur Booq Galaadi toddoba degmo gobolka Doolo ay ku sugan yihiin xarunta degmada Lehelyo waa wax weyn oo u soo kordhaya isdhexgalka bulshada iyo noolaanshaha inay dhalinyaradu ay ka faa'iideyaan saaxiibtinimo iyo isdhexgal ay ka faa'iidanayaan runtii si nabadgelyo ayuu maanta galabta noogu furmay waxaan rajaynayaa insha Allah koobkan oo aan marti gelinaynaa ka degmo ahaan inuu noogu dhamaan doono si nabadgelyo ah isdhexgal ah waxa baaqahoon dareeyaa runtii waa isdhexgal kubadda oo dhalinyarada waxay dhaxay walaaltinimo iyo isdhexgal iyo isbarasho bay dhalinyaradu ay ka faa'iidaan inta koobkaas u socdo waxaan todobada degmo gobolka Doolo runtii ma kala jecel degmadii qaadaysaba degmadu ciyaarta maanta aaba on marti geliyay on xarunta degmada Lehelyo lagu socon yahay way ismin yihiin dhinaca koobka degmadii qaadaba waan soo dhaweynaya laakiin muddada ay socdaan kuwan hadda ciyaara iyo kuwa kaleba inay si wanaagsan u ciyaaraan anshaxa u ciyaaraan nabadgelyada ilaaliyaan saaxiibtinimada ciyaariyaan kubaddu waa cadaan iyo madow toddoba degmo hadda ciyaarayso oo iska hor imaanayso labada ciyaar galabta ciyaaraysa iyo kuwa dambe ee ciyaari doonaba sama finaalka degmooyin baa tagi doona ugu dambeeyna hal degmo qaadi doonta degmada qaada inaan si farxad iyo wada jir ah aan ku soo dhaweyno inta kale aan ku sagoontiyo insha Allah hadii Allah awood u ogolaado koobkana uu noqon doono koob si qurux badan ku bilowda si qurux badan insha Allah ku dhamaado oo nabadgelyo ah furfurnaana isdhexgal ah walaaltinimo ah waxaan rajaynayaa koobkan markuu dhamaado inay degmooyinka gobolka Doolo ee maanta marti gelinay ay mar kale codsan doonaan inaan marti gelinay degmada Lehelyo soo dhaweynta ay shacabka kala kulmeen